بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 726 عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه خير من العلم. وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل. رواه الطبراني وأحمد والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 5tii bishii 2 safar sanadka 1447 isla markaana waafaqsan 30kii bishii 7 sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray al-muntakhabu min saxiix sunan nabawiyya wa ziyaadatuhu ayaanu ku dhex jiray. waxaanu gabagabaynay mowduucii ku saabsanaa annahyu can almas'alati waataxdiiru minha, su-aasha iyo bini aadamka waxaa la weydiista nahyiga ku soo arooray iyo sida looga digay. baabka waanu dhammaynay. baab kaloo cusub oon weli bilownana male. waxaan ka cudur daaranayaa shalay oo ahayd maaragtay axad ahayd ama ithniin ama talaado ahayd, uu naga baaqday. shalay oo talaado ahayd darsigeena ugu baaqday, marka waanu idinka raali gelinayaa. maanta waxaan qaadanaynaa hal xadiid. baab ma ahe, waa xadiid aanun jeclaystay waaqica muslimiinta maanta ay ku sugan yihiin min mucjizaati nabiyi calayhi salaatu wasalaamna ah. sheekh albanina silsila saxiixa oo xadiidka ku saxiixinayo. waa xadiid ka hadlahaya waktigii nabiga iyo saxaabadu say ahaayeen iyo maanta sida la yahay, zamanka waktiga qaabkii lahaa iyo aakhiru zamaanka waxa iman doona iyo xaaladdu say isu bedeshay. iyo xadiidkan waxa uu ka hadlay maanta markii muslimiinta aad ku dabaqdi inaad maaragtay moodiba nabiga calayhi salaatu wasalaam exactly sidan uu sheegay, waqtigaa sheegay 1447 ka hor waqti uu sheegay. maanta xaaladda muslimiinta ku dabaqmaysa, khaasatan Soomaali inagu haddaanu nahay. xadiidkan al-Imam Tabarani baa kitaabkiisa Mu'jam al-Kabir ku soo saaraya. sidoo kale maaragtay culimo kalena way soo saaraan. al-Imam maaragtay Muwatta Imam Malik maaragtay fi muwatta'ihi asana isagoo qaybo ka mid uu ku soo saaray, inkastoo ay xoogaa farqi u yar dhexeeyo oo xoogaa ku yar kala duwan yihiin, iyo keyrkoodba way soo saareen. xadiidkan uu markaa sheekh albani raxmatullaahi calayhi silsila saxiixa ayuu ku saxiixinhayaa. xadiidka macnihiisa muxuu yahay marka? cabdullaahi ibnu sacd al-ansaari radia allahu tacaala canhu wa ardaah, maaragtay oo ah cammu xaraam ibnu xakiim adeerkii ahaa. qolo kalena waxay leeyihiin ree ansaar ma ahe, qurashi umawi ayuu ahaa. cabdullahi ibnu sacd alqurashiy alumawiyina waa la yihahdaa. saxaabi jaliila, macrakadii sacd bin waqaas hogaaminayay alqaadisiya raggii ka qayb galay buu ahaa. reer shaam iyo halkaana wuu ahaa saxaabiga jaliilka. axaadiid aana badnayn buu nabiga ka wariyey. wuxuu leeyahay can rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam annahu qaala, nabigu inuu yidhi: inakum ayuha asxaab, wey saxaabatu rasuulillahi buu nabigu la hadlaya. inakum idinku ayuha asaxaaba asbaxtum waxaad ahaateen fii zamaanin zaman baad tihiin kathiirin uu badan yahay zamankaas fuqahaauhu dadkiisa ahlulcilmiga ay badan yihiin. zaman waxaad ku nooshihiin culimmadiinu ay fara badan tahay oo inta aqoonta leh ay fara badan yihiin. maxaa yeele qur-aankii baa degahayey, waxyigii bay xifdiyeen. 10 aayadood qofka yaqaana fiqigooda iyo waxoodoo dhan buu yaqaanay. kathiirin ay badan yihiin fuqahaau, culimmadoodu ay badan yihiin. qaliilin ay yar yihiin khutabaa'uhu, kuwa dadka wax u sheega ee maaragtay khudbaynaya ee hadlahaya ee biduuni cilmiga. bimacnaa qaliilin khutabaa'uhu ay yar yihiin kuwaas. khudaba dadka la hadla maaragtay khudabadiina iyo hadalka uu yar yahay. cilmigaadinku badan, fuqahadiina fara badan, khidaabada dadka lala hadlahayo iyo waxaana ma badno, iyo isa soo saaritaanka iyo fulaan waxaa ma badno. qaliilun ay yar yihiin khutabaa'uhu, khudabadiisii iyo dadkan hadla oo diin baan dad ugu yeedhaynaa dhahaya, cilmigoodina uu yar yahay,
dadkaa waa idinku yaryihiin. qaliilun uu yar yahay su'aaluhu, waa zaman su-aashiisu ay yar tahay. su-aasha ama waxay noqon kartaa su-aal cilmi ama su-aal maadi bay noqon kartaa dunawi. su-aal cilmi haddaad tidhaahda cilmigii baa muntashiraho culimmadii baa fara badanba intaana aqoonta lahayn way yar yihiin, intaana culimmadii baaba cilmigii ku faafisay. idan su-aasha cilmiga la weydiiyana ay yar tahay waa haddaad cilmi tir, maxaa yeelay lintishaari ilcilmi wa kathratihi wey, cilmiga farabadnidiisa iyo faafitaankiisu ku tusinayaa iyo dadku jahliga inuu ku yar yahay. haddaad maadi tiraahdina oo weliba midda in lagu fasira ay fiican tahay maadi, maxaa yeelay midda ka dambaysa garanaysa. qaliilin ay yar yihiin su-aaluhu, dadka adduunya wax weydiisanayana ay yar yihiin, maxaa yeelay waa waqti, waa zaman zuhdigu uu ku badan yahay, adduunyada yaraysigeeda iyo qiimo xumadeeda ay dadku yaqaanaan, tacafufka iyo dhowrsoonaanta badan. sidoo kale wuxuu u yaryahay kathiirin ay badan yihiin, mucduhu kuwa wax bixiyana ay badan yihiin. su-aashu waxay u yaraatay oo maadiga ah inta wax bixisaa fara badan, zakadii hadday tahay, sadaqadii hadday tahay, silaturaxim hadday tahay, dowladdii iyo dadkii maamulka hayay oo ummadaas ay maamulka u hayeen wixii baahan ay fiirin hayaan oo tafaqud hayaan ayaa fara badan, inta wax bixisaa badan. idan su-aashii maadigahay waa yar tahay. markaa qofkii laba nooc bay ku yaraatay. kow, qofkii wax weydiin laha oo tacafur ka dhowrsoonaya su-aashi iyo zuhdiga adduunyada yaraysanaya, qiimo xumadeeda adduunyadan ay yaqaanaan. saas darteed bay dadku su-aalihii ayna u badnaynen, iyana u badnayn su-aalahoodu. ama dhinaca kale haddaad u dhigti inta wax bixisaa fara badan, sadaqadii iyo zakadii iyo dadkii madaxda ahaa oo ummadooda fiiriya, xaaladooda tafaquda, baahida ay qabaan daboola, isku daya inay daboolaan. saas darteed bay su-aasha u yaraatay. idan mar hadday sidaa tahay oo zaman culimmadiisu ay fara badan yihiin, dadkiisa jahligana ay yar yihiin, su-aalaha diiniga ama dunawi lisweydiinaha ay yar yihiin, inta wax bixisana ay fara badan yihiin, alcamalu fiihi, camalfal zamanka la camal fala khayrun uu ka khayr badan min alcilmi, lanna cilmi waa muntashir. idan waxaa loo baahan yahay camal marka alcamalu fiihi khayrun min alcilmi, cilmigii iyo dalabulcilmigii uu ka khayr badan yahay camalfalki. limaada? lianna cilmigu aad buu u faafay, aqoon wuuna fara badan yahay. idan camalfal baa fiican. taa waa zamankii saxaabada wey. zamankeenana waa ka marka wasiyati waxaa iman doonu nabigu yidhi, zamaanun zaman baa iman doona qaliilun ay yar yihiin fuqahaauhu, dadka aqoonta diiniga rismiga yaqaana ay yar yihiin, oo aqoonta diiniga ah ee ku camalfalka leh. kathiirun ay fara badan yihiin khudabaahu, khudabadiisii inta dadka diin ugu yeedhi aqoonna lahayn, xubu duhuur inay un muuqdaan oo shaashada ka soo baxaan jecel, hadlahayaan, waxay ka hadlayaanna aanad si toosa u garanayn. diintii ay ka hadlayaan iyo waxay dadka ugu yeedhaan aad uma yaqaanaan, aqoontaa ku yar, marka hadalkana waa ku badan yahay. kathiirun ay badan yihiin su-aaluhu, su-aalihiisa ay badan yihiin. oo su-aalaha hadda cilmi hadday noqotana su-aalaha cilmiga la weydiin baa badan, oo jahligii baa farabatay. 24 saac hal su-aal baa laga yaabaa dadku in maanta o dhan soo noqo. sanadka waxaa lagu weydiin ramadaanka iyo hebelka gabadh uur leh oo intaasoo ramadaan lagu laha xaalkeeda, sanad kale way soo noqon, ka kale way soo noqon, iyo wixii lamidka. waan xanuunsanahaye soon ma soomi karee, raashin maxaan bixiya, sanadka maad u sheegi, kii kalead u sheegi, maba xifdinhaya baata. sanad horaa laguu sheegaata ma dhahayo. kathiirun su-aalahoodaa badan. haddii maadi noqoto oo xagga adduunya u kacdina, faqrigii baa fara badan, inta wax bixisana way yar tahay. qaliilun mucduuhu, inta wax bixisana way yar yihiin. idan kuwa sadaqada inta bixisa ama zakada bixisa way yar yihiin. maamuladii iyo dowladaha jirana dadkii dan kale madax dadkii dan kale may aho. haddii faqri loo dhiman, haddii xanuun loo dhimanayo danba kamay laho. saas darteed su-aalihii baa fara batay, ama xag diin hadday noqoto ama xag maadi hadday noqoto. alcilmu aqoontu fiihi dhexdiisa khayrun ay ka khayr badanta min alcamali, camalfal. cilmigii baa yar, jahligii baa fara badan. idan zamanka inay wax la barta iyo inay la shaqeeyo, la camal falo, inay cilmi la bartaa ka fadli badan. maxaa yeele qofku inuu kolka hore jahliga iska rafciyo oo aqoon u yeesho, kadibna camalfalki markaa. idan ikhwati filaahi, atharkan alcilmu fiihi khayr min alcamal, xadiidkan isagoo athar cabdullahi bin mascuud ku joogana wuu soo arooray, laakiin xadiidka hadda waa marfuuc weeyaan. cabdullahi bin sacd alansaari ayaa wilqurashi alumawi
haddii qiilka kale la dhahana labadu way soo arooreen. xadiidka nabigu u kor yeelay waa xadiid cajiiba wey, xadiid cajiiba wey. markaanu dul marra macnihiisa nabigu wuxuu leeyahay nabiga zamankii saxaabadu ay joogeen oo afdalu qarni khayrul quruuni qarni uu nabigu yidhi uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum afdalu qarni oo qarnigii saxaabada baa nabigu wuxuu yidhi idinku waxaad ku nooshihiin zaman baad joogtaan culummadiisu ay fara badan yihiin, culummadii baa fara badan, cilmigii baa faafay, maaragtay dadkii culumay u badan yihiin, qaliilun khutabaa'u khutabadiisii iyo kuwan hadla iyo waxa hadalkuu ku yaryahay, hadalka uu yar yahay. dadku waa fuqaha ahlulcilmiya, maaragtay aqoontu faaftay, idan hadalkii diinta laga hadli lahaa iyo wixii waa iska yaryahay, maxaa yeele dadka aqlabkooda aqoon bay leeyihin. idan baahi badan oo inay diin la sharxo oo ay usii baahan yihiin male. qaliilun khutabaa'u. sifada kale labaad ay leeyihiin ama saddexaad qaliilun su'aaluhu, su-aashiisu ay yartahay, su-aasha xagga diiniga way yar tahay, maxaa yeele cilmigii baa faafay. 10 aayadood saxaabadu haddii yaqaanaan macal fiqigoodii iyo waxooda dhan bay garanayaan. su-aasha diiniga way yar tahay, waa maxaa yeele waa lintishaar ilcilmi wa kathrat, cilmiga faafitaankiisa iyo badnaantiisa wey. maadi haddaad ka dhigti waxaa weeyaan maaragtay kathiirin mucduuhu, kuwa wax bixiya ay fara badan yihiin. haddaad adduunye ka dhigtina laba nooc bay u yartahay su-aashiio dadka waktigaa jooga ee saxaabada adduunye agtooda qiimo kama lahayn. saa darteed ba nin milyan dheer ah baad arkaysaa taariikhdiisa saxaabada iyo habnooleedkiisu aad ay khafiif u tahay. idan adduunyada mayna jeclayn, qiimo agtooda kama lahayn. labo, tacafufka iyo dhowrsoonaanta iyo is-ilaalinta su-aasha maadiga oo maaragtay adduunyaha inay dad weydiistaanna way iska ilaalin jireen. waa qodob midaas. qodobka kale ay u yaraayeen waxaa ka mid ah kathiirin mucduuhu, inta wax bixisana ay badan yihiin. dadka xoolaha leh ayaa wax bixiskooda badnaa, inta wax weydiisanaya inta bixinaysaa badan. zakadii bay bixinhayaan, sadaqadii bay bixinhayaan, silaturaximka xuquuqdoodii bay bixinhayaan, waakada. waa bulsho weynti. dhinacii kale dowladdii iyo maamulkii jiray waa maamul cadaalad oo ilaahay ka cabsanhaya. idan dadkii mas-uulka u ahaayeen baahidooday isku dayeen inay daboolaan. hadday dad da musiniin yihiin, hadday dad tabar yar yihiin, hadday dad lucafaa yihiin, hadday dad fuqaraa yihiin, baahidooda inay daboolaan bay isku dayeen. labada jaanibba marka waa u yar. inta wax bixisana way badan yihiin, maamuladoodiina marka waxa weeyaan way ilaaliyaan, xuquuqdoodii ilaaliyaan. idan zaman noocaasaad ku nooshihiin buu nabigu yidhi alcamalu fiihi, zamanka camalfal yaa khayrun ka khayrba min alcilm, leanna cilmi baahidii hadda ma taalla wey, oo cilmigii waa faafay oo saxaabadii baa meel kasta gaadhsiiyeen. idan cilmigii waa laga dhergey, camalfal baa loo baahan yahay in cilmiga lagu camalfalo. idan waktigaa saxaabadu in la camalfalaa ka khayr badnaa cilmi dalab, leanna cilmigii meel kasta ayuu faafay. taasu waa waktigii saxaabada wey. waxaa badan fuqahada, cilmigaa badan, aqoontaa fara badan, maaragtay jahligaa yar, inta maaragtay biduuni cilmi iska hadashaa yar, su-aasha diinigaa yar ama su-aasha maadigaa yar. waxaa fara badan inta wax bixisaa fara badan, wahaakada. camalka markaa in la camal falo waktigiisa ayaa ka khayr badan cilmi raadis. haddaba zamankii kale wuxuu nabigu leeyahay waxaa iman doona sayati zamaanun cagsigii sida qaliilun fuqahaau, zaman waxaa iman doona aqoontu ay yar tahay, dadka ahlulcilmiga aqoonta diiniga yaqaana ay yar yihiin. kathiirun khutabaahu, inta hadasha ee diin ka hadlaya aqoonna u lahayn ay fara badan yihiin. khatiib mimbar saaran ama dad la hadlay ama muxaadarayn, haddii masale basida la weydiiyana uusan garanayn, internetii waxbuu wax ka soo sarsaaray, marka inuu hadlo oo muuqdo oo hebel baa wax shaashada iyo telefishin uu ka soo baxa ama arta ama baraha bulshada uu ka dhex muuqdo, facebook ayuu jecel yahay. kathiirun khutabaa'u, khutabadiisiyo kuwa hadlana ay fara badan yihiin. kathiirun su'aaluhu, su-aashiisana ay badanta. waa zaman su-aashu fara badanta, ama xag diin ha ahaato, baahi diineed dadku ay qabaan oo aqoontu ay yar tahay, su-aasha diiniga maanta o dhan la wareejin, ama su-aal maadi oo adduunye jacayl baa dadkii ku fara badan, marka inay maadi weydiistaan iyo adduunya ku fara badan. qaliilun mucduuh, inta wax bixisana ay yar yihiin. su-aashaa fara badan, wax bixiskana waa yaryahay, waa cagsiga waktiga saxaabada. idan mar hadduu yaraaday wax bixinta oo dadkii zakada iyo xuquuqda waajibka saaraa ay bixitaankooda yar tahay, sadaqadu ay yar tahay,
dowladdii iyo maamulkiina daryeelka dadka ay ku yar tahay dee dadku marka banaanka faqriga fara badan zamanka noocaas alcilmu fiihi aqoon iyo cilmi la bartay zamankaas khayrun wuxuu ka khayr badan min alcamali camal fal buu ka khayr badan yahay maxaa yeele qofka cilmiba ma lahaba idan camal fal maca alcilmi ah ka fadli badan camal fal aana cilmi lahayn alcilmu fiih inay wax la barto wuxuu ka khayr badan yahay inay maartay camal falkiibu ka khayr badan yahay laanna camalkaadu ma hagaagaya haddaad aqoon lahayn ikhwati fillah xadiidka markii loo bandhigo waaqica muslimiinta maanta khaasatan soomaali haddaan nahay exactly waxaad moodaa inayna haysato aqoonta fiqiga diiniga yar hadalka diinta laga hadlayo aqoon ayadoon loo lahayn baa fara badan su-aasha maadiga iyo diiniga iyo adduunya maarata weydiinteeda fara badan inta wax bixisa ee wax sadaqaysataa yar cilmiga marka intaasoo dhanba way jiraan idan waktigaas zamanka noocaasa inay maaragtay wax la bartaa ka khayr badan camalkii ka khayr badan leanna camalka mar haddaada cilmi u lahayn camalkaadu ma fiicnaanahayo idan xadiidkaasaan jeclaystay maanta inaan bal idinla wadaago qof kastow bal intaada meel kaleba u gudbinin xadiidka adiga isku dabaq xageed ka taaganta aqoon cilmi oo diin ma leedahay waxa la yidhaahdo sadaqada iyo waxbixinta nin ku fiican ma tahay dhinaca kale ma tahay dadka su-aalaha faraha badan dadka weydiiya ma xageed ka soo gelaysaa xadiidka meel unbaad ka soo gelaysaa nin kastoo miisaanka isku saar wadcigeennana ku dabaqa waxaan leeyahay marka waxaan ooga baxaynaa inuu cilmigu faafo inay cilmiga la barto inay dadka wax haysta ay wax sadaqeeyaan inay qofka faqiirkaana ilaahay u sheegto oo bini aadam uu gacmaha uu dhiganayo uu iska yareeyo waana mawduucii aan soo xidhnay buu ahaayo maana furin mawduuca laakiin xadiidkan baan jeclaystay bal inaanu si fiican loo dhuuxo ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حقا نتصنون يتاق حق الرعيتان كيسا هل مرمى حديث آخرين يا الحديث 726 عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معضوه العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معضوه العلم فيه خير من العمل رواه الطبراني في المعجم الكبير والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.